waxa aad loogu hanqaltaagaya saaka adiga suugaysaan inaan ka hadlo doorasho la isku haystaa waxaad maqlaysay Jubbaland oo leeyahay doorashadu ma rabtaa leeyahay ma dhacayso waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo Jubbaland waxay u faradhuuban tahay inay doorasho wadanka ka dhacdo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya iyo meesha ay marayso waxa asal u ah isbeddelka siyaasadda ee dhacaya waxa asal u ah 4 bilood inay doorasho dhacdo oo cidii calafkeeda uu siiyo uu qaato waxa asal u ah dadku waxay ku heshiiyeen inay meel mariyaan taasana diyaar waxaan u maleynayaa saaxiibaday baa ka hadlay maanta khilaafka la isu hayaa waxa uu yahay war waxaan idhi wadanku doorashaha aad Jubbaland gobolay ka tirsanay maanta gobol dhan yaa Malaysia la soo ururiyay intii gacanta loo geliyay yaa maamulkii dawladda iyo ciidankii iyo dhowr iyo 10 sano dadkii dagaalka ku jiray intii laga soo bixiyay yaa waxa la yidhi qoladan maamulaysa oo maxay maamulaysaa doorashada soo socota inay wax ka qabado kuraasta taalaan u qaadan waxa yaa aqbalay waxaad ogtihiin wadada gaariga doolow ka baxa ee luuq u socdo 78 kiiloomitir isagoo qofna la soconin buu socon jiray iska daa balad xaawo iyo doolow iyo ceel waaqiya saasa lagu kala soconayay maantana waxay gaadhay iyadoo weligood shabaab canshuur ka qaadin inay irid walba ka qaadaan oo loo fudaydinayo isleedahay ciidanka dawladdu ay leedahay kii xuduud ka ilaalinayaan ay yihiin kuwa iyagu dadka dhibaatada u geysanaya mushkiladda sameynaya waanu wada hadlay waxaana waraan isu tanaasulo oo mujtamac Soomaaliyeed baana fiirinayo oo hooyo agoon leeyahayna fiirinaysa oo oday indhala baana fiirinaya oo mid gablanaana fiirinaya intaas cudur baa jirtay dalkaani sidoo ku badbaadi lahaa ka shaqeeyo taasaa keentay inaan intaan xamar rasuul nimaano intii oo shir galo la isu tanaasulo oo la gaadho waxa naga dhaxeeya qabanayna ka wada shaqeeyo madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku waxay ku heshiiyeen in wadanka doorashada ay dhacdo xilligeedii ku dhacdo waxaan idhi war gobolka Gedo Jubbaland baa ka tarisan heshiis baan gaadhnay waxaan doonaynaa gobolka Gedo in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo maanta gobolka laga bilaabo ilaa intii gudoomiyayaasha ahaa hal midoo ka jooga malaha maalin walbana waxaad arkaysaa warqad la leeyahay gobolka Gedo ka soo baxday waa la qorayo wax lagu sameeyo waxa kaaga daran haddii calaamadda uu la toosinayo waxa ma ahaateen calaamadii lafteeda la qaloocinaya iyo calaamadii war waxaan rabnaa inaan Soomaali u sheegno inaanu nahay Soomaali horgalkeedii sababtoo ah maanta annaga Jubbaland Soomaali ah sababtoo Soomaali baanu kulminaa waxaan rabnaa inaan u hooseeno doorasho xalaal iyo xor ah waxaan rabnaa mid lagu qanco ninka hadda musharaxa iyo ka madaxweynaha hadda fadhiya ka kulligood inay meesha wada galaan waxaan rabnaa ninka madaxweynaha inuu noqdo musharax laakiin processka dhexdiisa uu ka dhaco waxaan rabnaa Jubbaland inay la sinaato dawlad goboleedyada kale waxaan Soomaali rabaa inaan u gudbiyo ku idhaahdo Soomaaliyey waxaan rabnaa inaad xakam noo noqotaan oo gartayada qaadaan war inay Galmudug doorashadeeda qabsato labada meelood oo Puntland labada meelood ay qabsato oo Hirshabeelle qabsato oo Koonfur Galbeed ay qabsato oo Jubbaland la yiraahdo idinku ma qabsan kartaan annaga idin qabanayna sharciga qoray yaa xakam ka noqonaya arinta wax garadka bulshada Soomaaliyeed siyaasiga Soomaaliyeed iyo qof kasta oo aqli u ribaan u deynaya inay gartaa xukumaan qof kasta oo Soomaaliya oo aqli la baan rabaa inuu jawaabteeda bixiyo saaxiibaday waxaan leeyahay inaad doorasho la qaban tiraadaan nin walba uu labadiisii meelood banaysto Jubbaland la yiraahdo idinku ma qabsanaysaan la idin qabto haddaanay garbaari ku qaban kareen Kismaayo sababaan ugu qabtaa ma jirto waxa soo keenay haddii kale halkan aan ku wada qabanaya kulligood masalada xukunkeeda waxaan u deynayaa Soomaali bal Jubbaland waxay galabsatay
iyo waxay dadka kale kaga duwan tahay inay sheegaan iyagu waxaan intaa raacinayaa ummadda Soomaaliyeed war colaad waan ka soo daanay abaabul qabiil waan ka soo daanay aflagaada iyo media wax la isu mariyo shabaab ay loogu filan waxa maalmahan dib u soo noqotay shabaabka waxay sameeyaan wax la yiraahdo takfiir bil maslaha qofkii iyaga ka hor yimaada waa murtad in la dilana waa waajib dhiigiisuna u banaayay maalmahan waxaad moodaa warkaas inuu ku soo noqonayo caasimada Muqdisho iyo saxaafadeeda oo maqlaysaa nin weyn oo taagan oo leh hebel waa in la dilo waa murtad diintii uu ka baxay war diintu waa tee shabaab baan isku laynay war diinta ma idinka leh hadday noqoto nin waliba ninku la coloobo waa gaal oo waa murtad oo kuway murtadiinta shabaabka ku sheegayeen iyo waa hadda murtadiin A iyo B u kala baxayaan soo dhibaato ma ilaa shabaabka kulli waxaan oo dhan murtad bay u yihiin annagii waa murtad A iyo B isu kala bixinayna miya Axmed Madoobe hadduu yidhaahdo war dowladnimadu sidan ma aha war reer Jubbaland waxay xaq u leeyihiin inay isdoortaan war waxaan rabnaa garbaare iyo Kismaayo waa isku mid walba state-kii inuu qabto maamuladii loo gacmanayo gobolka gacanta lagu soo celiyo hadda takfiir baa horay shabaab baa igu xukumay dhaxdooda waa murtado barnaamijkan ayuu ka hor yimid qoladan xamar doorashadiisa Maxamed Neymar ka hor yimid waa murtad kala meeyayo hadday ridadii siyaasad noqotay halkaa gaadho waa nasiib dar meel looga wareegana ma laha waxay la tahay mar raba inaan ku sii dheeraado laakiin reer Jubbaland waa mid ka gobol garas jooga iyo ka raasgaanbooli joogana xildhibaanada matalan hal mar bay u codeynayaan doorashadana mid isteedyada kale la mid ay ku leeyihiin oo tagarow lagu qabanayo Dhuusamareeb lagu qabanayo Tajawar lagu qabanayo Tabaydhabo kama duwan waxaan kula dardaarmayaa dawladda Soomaaliya inay ilaaliso wadankani ma aha wadan fiiri waxba idin sheegay dawladda Mareykanku dhowr boqol oo sano jirtay Trump inta artay hadda isla riijinaya laakiin maxaa hagaya waxa hagaya waxay tahay sharci iyo dastuur iyo qaanuun iyo hay'ado dawladeed iyo wax soo jireen oo muddo inta la soo jiray inaga maxayna kala hagaya afar sano ayaa Allah wax ku dhoodhoobana teeramka xashiga baa ugu horeysay dawladku meel gaar ah in laga baxo waxa aan ku dhaqanayna oo dhan waxay tahay war inuu isbedelku si uu dhaco degan oo isbedelka siyaasaddu uu sidiisa ku yimaado oo ninkii calafku helaa uu qaato waa wax weyn oo la inaga helay haddaan taa diidno hay'adaha dastuurkeena u noqonayna odayaashii qabiilkeena noqonayaan nin waliba waa reebel iyo reebel laamaha amniga wax fulinayaana waa qorigii aakeega ahay mooryaanku watay dan away dawladnimadu markaa ha ku ciyaarina dhuxul dabaad ku ciyaaraysaan ha ku ciyaarina waxaydaan garanaynin baad ku ciyaaraysaan ha ku ciyaarina meelaydaan hore u soo joogin baad maanta ku ina dilacsateen gurigaad ku jirtaan ee askariga amisom furiisa oo hayo ee jidadka uu kontaroolka tahay albaabka uu furayahay eed garan weydeen inaad dhistaan ciidan Soomaaliyeed oo kala wareega oo isagu qabta maamulkii oo la wareega ciidankii iyo amnigii oo isaga aamintaan yaa maanta waxaad doonaysaa inaad dhuxusha dabka ku ciyaartaan aad boodboodsiisaan waxaan leeyahay Soomaaliya ha isu timaado war gogol nabadeed ha isugu timaado war ha tashato war xalka ay leedahay masiirkeeda ha ku tashato war doorashadu siday u dhici jirtay ha u dhacdo war Soomaaliya xakam idinkaan loo Jubbaland sumad gaar ah haday leedahay isteedyada kala duwan tahay mujtamaca Soomaaliyeed arrintaas soo cadeeyay hadii kala Soomaali meelaha wada marto oo ninka kursiga ku fadhiyay yuuna noqon kursiga mid isagu sidoo doona yeelay dadka hawla sinaa waxa shalay jiray waxa laga yaabaa in dadka qaarkood ay isla Axmedow isagu doorasho boobay oo Jubbaland yaa la tartamay iyo sidan uu yiri iyo dad buu diiday waan arkay maalin qodob noocaas soo qoraysay doorasho furan baan dhignay oo banaan baan dhignay waxa maanta la sameeyay waxa isteedada kale la soo mariyay waa la marinay
safiirro caalamka inta la keenayba waxaa lagu yidhi ordo ninkii lacag ha qaato ha tago ciidamo iyo dowlado sheegana intii la soo diray bay xoog la yimaadeen reer jubbaland xoogaal bay isu yihin intii ku tartamaysay iyo intii dhacaysana see u dhacday waa la yaqaan kaambeynku ha noqdo dadka waxbaa loo qabanayaa been loo sheegin dowlad hebelaa sheekh xuseen furraa iyo tukalaa shaydaan iyo hebel baa kale iyo naalmaalba ku wareegin war aan garanno waxaan shalay soo marray dad kale dib yaan loogu celin waxay soo mareen